السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسمو idinleh kusoo dhawaada YouTube channelkayga Bake with Asumi maanta waxaan idinla wadaagayaa quraacas waa Somali donut weeyaan quraac yar oo easy iska fudud casriyo fudud oo galabtii la iska sameeysan karo oo very easy markaas insha Allah maanta kaasaan idinla wadaagayaa ila soo tijaabiya saddex shay oo quraatu ka sameeysan yahayba quraaca dhan aad arkaysid saddex shay buu ka sameeysan yahay marka insha Allah kaasna maanta idin wadaagayaa soo dhawaada Bake with Asumi maanta marka quraacaasna idin wadaagayaa waxa weeyaan Somali donut weeyaan quraac marka waxa weeyaan berigi yar yaraantii caruurnimadii waa kan wuxuu ka koobnaa Somali donut baan maanta sameeynaa waa casriyo yar oo iska fudud oo waqti badan ka qaadanayn wax badan kama koobna daqiiq baking powder laba midho beeda halkan waxa igu jira koob sonkor intaas uu ka kooban yahay intaasan ka sameynayaa quraacan yar hada dhadhamsid laga ka qaban kari maayo waana easy waa very simple waxaan sameeynaa waxaan isku darsanayaa koobka sonkor iyo labada midho beeda beedka markuu kaaga dhex dhacdo qolofta beedka wax laga soo saaraa qolofta beedka wax kala dad istiraad kaga soo qabo way siibata laakiin dad qolofta beedka ku soo qabatid markiiba laakiin magnet badu malayn soo kaaga soo baxaysa marka labada midho beedan ku darsanaya labada midho beeda markan sonkortii labada midho beeda si fiican iskugu qoosho laba koob sonkor aan ku daraya laba midho beeda koob sonkora inta waxaan ku darsanayaa laba koob daqiiqdan isticmaalayo waa daqiiq aanay waxba ku jirin waa plain flour waa daqiiqda caadiga markaad self raising flour ma isticmaalayo self raising flour da isticmaalsid uma baahnid inaad baking powder ku dartid marka imka waxaan isticmaalayaa daqiiq ana waxba lahayn waxaan sameeynaya marka si fiican iskugu qoosho beedka iyo sonkorta waxaan ku darsanayaa mulqaacad bikina iyo laba koob oo daqiiq marka hore waan si fiican iskugu qooshatid saliidina already dabka ii saaran tahay isla markiiba waa dubaysaa kuma sii oolayo marka intaas si fiican iskugu qooshatid saliidaadii ku kulaatay ayaad ku dubaysaa wax la dhigdhigayo ama aad rabtid inuu ku faxayo waxaas maaha marka kaas ma si fiican iskugu qooshatay ilaa inta ka cadaanaysa sonkortii daqiiq sonkortii beedku butter laguma darayo saliid laguma darayo wax kale laguma darayo intaas uma ka sameynaysaa waa casriyo yar 5 minutes ka qaadanaya 5 minutes time wadaragtaas sidaas iskugu kay cadaadeen waxaan ku darsanayaa daqiiqdii marka hore koob baan ku daraya koobkaasaan ku qooshiyaa koobkaas markaan ku daro haddana ka kale ku daraya marka hore waan eegaya hortay waayo marmar beedku kala badan yahay biyaha ku jiray waxaas waxa dhici karta marmar labada midho beed inaanay laba koob daqiiqaba wada qaadan marka hore waxaan ku darayaa xabad waxaan ugu jira koob iyo mulqaacad yar shaaxa oo bikina mulqaacad way buuxdaa intaasan isku qooshiya markaan arko inay si fiican iskugu kay qooshantay koobka kale ku soo darsanaya in qood aragta koobka si fiican buu u wada qasmay marka koobka kale ku soo darsanaya xitaa marmar beedka ku kala xirantay waxa dhici karta in laba koob iyo bar daqiiqdu noqoto adigu sida kuugu deeqdoon hadhow gacantan ku xashiyaa laakiin marka hore horti foogana si fiican iskugu dhex gelinaya marka aragtid inay wada qoyday daqiiqdii ba gacantaada inaad ku xashitid waayo foog inta ka badan ku sii xashiyo marka waxaan sameeynaa gacantiidan dawladtayga gacantan ku xashiya gacanta marka ku xashid waxaad garanaysaa inaad daqiiq kale u baahan tahay iyo in kale iyo in intaasi enough tahay xoogna uma sii adkeynaysid laakiin waa inaan usoo gacantaada ugu dhegdhegin uu kaaya hadho way hadhow gacantaad ku sameynaysaa roll bad ka dhigaysaa marka waa inuu ka hadho marka in yar oo kale ku darsanaya koob ka halfkiisa
marka beedkan anigu isticmaalay wax waxa beed waaweyn laakiin beedkaaga ku xidhantay qiyaastiisa dad beed yar isticmaalaysid 2 koob oo bay ku sameynaysaa oo daqiiqa haddaad beed waaweyn isticmaalaysidna 2 koob iyo badh daqiiqa koob sankara 2 midho beeda bas imka intaas waa enough way ku filnaatay wax kale uma baahna daqiiq kale uma baahna dee wadarka sayna isku wada timid waaba intaas laga sameynaya marka hadda waxaad sameynaya intaas saas baad oranaysaa saas roll yar uga dhigaysaa inta waad isku xidhaysaa saas loo dubaya saas lagu shiilaya imka daqiiq saliid way u khulaatay already marka khalaas waan iska dubanaya inaad dhigdhigtid uma baahnid waqti badan kaama qaadanay marmar de qof emergency kuugu soo galay oo kale intaad buskud iyo waxa hordhigi lahayd kanaad sameynaysaa bahalka recipe-giisa habaryarta waa iskale Sahra Yuusuf dee la caruurnimadu aan cuni jirnay runtii wali cid kale sameysana ma arag habaryarta waa iskale bahalka recipe-giisa sida loo sameeyo yaa marka loo duceeyo habaryarta waa chef marban insha Allah ku soo invite gareyn doona markan Hargeysa tago halkan aan idin hor keeni doona cuntada ay sameeyso cilmo sameeyso marka recipe-ga nayada iskale way idin ka saliid way kulaatay xabad yar baan ku tijaabinayaa waa saxdii marka waxaad sameynaysaa hadaad aragtiin in farax kaaga dhagdhagayo in yar saliid yar baad gacanta marsan kartaa marka saliidaas wax ka caawinaysa inaan kaaga dhagdhagin haddii kale istiraahadid kuguma dhagdhagayna dee shaqadaada saa ku wadanaysaa dee donut ka yar baad sameynaysaa sida donut oo kale ka dhigaysaa dhexda saas kaga laabsaa marka saas aad u dubaysaa saas ma u wada saylayd ka dhameynaysid marka saliida ku wada gurtid waxaad sameynaysaa markiiba wada rogaysaa waa inaanu xoog kaaga casaanin dahab yar qurux badan markuu noqdo wada rogaysaa saliida dad ku sii deysid hadii kale uu ka mudabaaniya hadhowna uu ka adkaanaya marka waa inaad markiiba markuu in yar casaado aad xaga kale u rogtid quraacna wuxuu ku fiican yahay dhexda ka dhow wax qoyaan iyo waxba kuma yeesho isla sakankiiba uu casaadaa markiiba waa inaad xaga kale u rogtid oona sugsugin intuu demadoobaaniyo hadii kale dee hadhow waanu fool xumaanayaa waa adkaanaya markaas sidaas weeyaan inaad kaga gurtid markuu sidaa dahabiga yar quruxda badan la noqdo eed xaga kale u rogtid waa ready waad ka guraysaa hadhow hadaad rabtid chocolate baad dusha kaga dari kartaa dhalaalisid hadaad rabtid condensed milk baad ku dari kartaa adigu wax dee decoration hadaad rabtid wax yaroo dusha aad kaga qurxisid laakiin dhadhankiisu saasuu perfect ku yahay wax kale uma baahna wax kaloo lagu daro uma baahna sidaasuu ku dhammaystiran yahay quraacani maasha allah mar hadaad samaysid waxaan ku dibi dambe wax dambe laguguma soo qabanayo dee waa donut ka yar marka saliidan ka wada gurayaa saliidana waa inaad ka yara gurarisid bas waxaad sameynaysaa on marba intii kale ku harsanayd baad sameynaysaa quraac xariira ka soo baxay xariir oo saliidana waa inaanu dabku xoog u kululayn iska naaqustid hadii kale dabku kulul ku sameynay uu ka gubay go'o horta bal habartii ciida bartay oo soo waraysanay laakiin iyadun baa bahalka sameyn jirtay marka xaafaduhu bartileehin bal soo infaad garan jiro loo jiray kala quraacaaga noo dib markaas qalabkeeda qaadan jirto waxaan ku quraacaasi ka soo tuuri jirtay lida kaagagiya aduun iyo sabaayad huuriso duqad lagu daray bartiina cishaan idin tustoona si loo sameyn jiray sabaayad marka laga soo saaro ofinkaad keeg moodayso keeg aduu keeg dhanaan bay heedee keeg halku ka macaan yahay bay ka dhanaanayd laakiin sabaayada wax sameeyana weliga yaalahay maarag aan ka ahayn habartay la hadaayay marka waxaan waa hido waxaan waa iska hida raaca ya marka sasaransa xoogna waa inaan kaaga casaanin xag kale u rogtid markuu in yarun dahab yar noqdo hadii kale uu ka madoobaanaya waay markiiba uu bislaadaa dab badan uma baahna markaad aragtid inuu in yar brown noqday dahabi qurux badan uu ku noqdo markiiba wad rogaysaa saliid ha ku sii deynin saliid kululna hadaa lagu dubo markiiba uu madoobadaa
marka saliidu de ha kulaato laakiin aanay saliid noqon xog u kululo markiiba de bahalka leefaysa marka waka de waa casariye ya casariye yaro fududo haddana waxaan ku ori kalarka waa inaad kaga qaadid labada dhinac markuu saa uga ekaado ka gur bahalkan dhexda waxba kuma yeesho wax qoyaan iyo waxba markiiba saas u buskud u noqdaa marka saasaad kaga guraysaa inta ku hadhayna saasaad u dubaysaa waxaad ku dul darsan kartaa condensed milk waa dusha kaga dari kartaa dad jeceshahay laakiin sidaas saas ku fiican yahayba macaan kale uma baahna macaankiisi way isleegyihiin wixiisu marka wax kale oo lagu daraya haba yaraatee ma jirto laakiin hadda la rabtid decoration oo kale inaad ka dhigtid condensed milk waad sidaa dusha beer ku shubi kartaa markaas wuxuu kaaga dhigayaa lidid yar buu kugu noqonay qurux yar buu sameeynaya laakiin uma baahna dhadhankiisu saas uu ku dhameystiran yahay ila soo tijaabiye insha Allah bake with Asumi وإذنكا channel kana de like iyo comment kiga yamxuha wixii kale loo dhan jiray yaan loo kala reebin quraaci wakaas de waa casariyo fudud oo 3 shay quraad ka kooban quruxdiisana waad arkaysaa dhadhankiisana aniga idinka hubaa insha Allah ila soo tijaabiya fiidiyoyo badan oo xiiso badan oo aad ka faa'iideysan doontaan baan idin soo wada insha Allah balanteen waa bake with Asumi iyo fiidiyoyo cusub waad ka faa'iidaan khayran dhamaan baan idin rajeynayaa aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qiimaha badan aad gelinaysaan insha Allah waxaan rajeynayaa wax idin anfaca oo dhamaan dadka wada anfaca inaan soo gudbin doono